dareemay dad badan oo hadda koor mucaaradka idacayday jiro xaalka jirnay war duqbilow waa sixreeyahay war duqbilow ma garanaysaa dhabarku ka rareeyahay war duqbilow ma garanaysaa sibu ma garanaysaa aad iyo aad maxbuus war anigiiba hadda dareemay inaan maxbuusa sababto ina hadda xor noqday ba yarada dad waxay arkaysaa si dhimbalek waa saaxiibaday laakiin waa ehelkeygii waa dhiigayga waa dheecaankaygii muddo dheer soo shaqeynay anigu ma fikradeydii bedelay ayaguna inay iska caytamaan waa dhimbale iska wada hawshiina way soconaysaa halka markay maraysaan maanta laba qodob oo sir ah oo xasaasi ayaa ka hadlaya doorashadii baa timid nin walba 4.5 buu ku noqday nin walba deegaankiisii buu dib ugu noqday nin madaxweynaha sii taageerayo ma garanaysaa reer ahaan ku taageeraya ha taageero nin ra'iisul wasaaraha reer ahaan ku taageerayna sii taageero xildhibaanadii waa noqdeen oo nin walba deegaankiisii iyo wuxuu aaday ma garanaysaa degmad doorashadii laga soo doortay iyo dib ugu noqday iyo ugaaskii iyo odaygii haddii la inkiray hadda dib loogu noqday halka waa carcartankayga halkaasaan kaga tagayaa waxaan ka hadlayaa oo si toos uga hadlayaa labada arrimood aan soo qoray aba masuur roobow iyo sakariye ninkii taliyaha ciidanka sirdoonka ahaa ee hadda xilka laga qaaday iyo aba masuur roobow oo maanta cuntadii ka soomay oon cunto cunayni waxay ku kala duwan yihiin baan ka hadli doonaa qodobkayga koobaadna waxaa weeye madaxweynaha Soomaaliya hadda xilka hayo ee mudane maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu damacsan yahay markuu xilka ka degto inuu soo jabhadeeyo uu jabhad awood leh uu samaysto kula dagaalamo dawladda markaa jirto kuna la dagaalamo maamulka hadda Kismaayo ka jiro ayaan analyse-kiisa galayaa oo si wanaagsan oo qurux badan umada u faahsiinaya aad iyo aad meel bata joogtaa waa waaski duqbilow kablow faarax macowkii ka yaraa Bashiir Balla Mataraan xasagoro saaxiibkiis qarasho dariskiis ku noolow rawna garsee ku soo hajaab kaja soo dhawaada sheer gareeya meel bata gaarsiya idinko maasan waan ogahay kuwii xanaaqsanaa ma sheer gareeyaan laakiin kuwa cusub iyo taageerayaasha cusub ma sha Allah iyo kuwii horeetay duqbilow Soomaalinimada